وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. waxa ugu horeyntii ay tahay in ardayga lagu hormariyo barashada quraanka kariimka. ardaygu markuu quraanka kariimka barto waxaan shaki lahayn inuu aqoonta kale oo dhan uu noqonayo qof mutafawqiq oo sareeya. saas awgeed ugu horeyn waa in caruurta quraanka la baraa. waxa laga yaabaa in ay muddo kooban ku qaato inuu quraanka barto sanad ama laba ama wax la mid ah. ilmuhu isagoo 7 jira ayuu quraanka dhameyn karaa. isagoo 6 jir ah xataa quraanka dhameyn kara. waxaan haynaa arday 6 jir oo quraanka dhameysay, qaar 7 jir oo quraanka dhameeyay baan haynaa. marka ardayga isagoo 7 jir ama 6 jir marka uu quraanka dhameeyo cimrigiisa kale dhan waa u badbaaday. marka iskuulku tagi karaa wixii kale lagu daraabo tagi kala. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرنتن يعني برشاد القرآن ما أنت رنتي وحكو جرا هو صدعوين أو ضيع فربدن باجرا أو كجرا دنيا بدن ويكمل تهاي يعني والدينتو أرضيجان ير القرآن كبرنا يا عن حل بدن لسه سارينين مسؤولية ديسي إلالنتيسي يعني وقتي لو باهنا إن لك نقف كير قرآن لو دايو إنه قرآن كي يعني وقتي لصيو أنتي مدنا ما جرتو وحلا سمايا يعني قف كي يرى سجون قرآن كي وح بدن كبرن بسكول لجينيا أما إياه قرآن وحلقه الرئيسين يا سكول كيبا أو وحلقين يا قف كي يرى سكول كيبا لجينيا taasi waxay sababaysaa qofkii yaraa inaanu qaybsami karin maskaxdiisii oo aanu u qaybsami karin iskuulkii iyo quraanka barashadiisii dabeetana qofkii uu ku dhaco dahsha iyo hoos u dhac maskaxdiisa hoos u dhacdo. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. markaa waxaan runtii kula talin lahaa waalidiinta inay ilmaha ku horeysiyaan quraanka kariimka markuu ilmuhu quraanka soo barto ee uu soo faa'iideysto waxoogay 2 sanadood ama 3 sanadood madrasada loo daayo markuu ugu sahlan yahay ardaygaas wuxuu baranaya 15 jis quraanka kariimka haddii kale uu dhameynaya markaas fiican in iskuulkii la geeyo marka labadiiba uu isku xijin karaya ilmi haddii kale isagoo yar marka la geeyo iskuulkii halka dhibaato ka imanaysa inuu ilmihii aanu xaqii iskuulkana wax barashadii tayo ka keenin quraankiina uu leeyahay oo aanu quraan baranin. waxa kale oo idan runtii muhiim ah oo ay tahay bulshada in la ogaado ardaygu wuxuu quraanka dhigan karaa marka loo dadaalo waa 3 sanadood. marka mesela tusaale ahaan ardaygii marka 6 jir lagu geeyo malcaamadii ee uu 3 sanadood higaadii quraan ku barto waa 9 jir. 9 jir markuu yahay isagoo quraankii dhameeyay la damacay iskuul la geeyo ugu yaraan wuxuu fadhiisanayaa ama galaaska 4 ama galaaska 5 markuu u hooseeyo galaaska 6 buu fadhiisanayaa. marka yani anagu waxaanu aragnaa in qofkii yaraa la siiyo waqti quraankii yani uu ku barto oo iskuulka laga daayo ilaa intuu qofkii yaraa quraankii baranayo. waxa weeyaan 10 sanadood taqriiban macallin baan ahaanigu 10 sanadood imika way gaadhisay 2008 ayaan madrasadan furay 4 sanadood ka horeysayna malcamada musaacidka ahaan jiray malcamadii macallinkayga quraanka soo baray baan la shaqeyn jiray. waxyaabahan aad u leeyahay waxa kamid ah ardaygii oo gelin quraanka dhiganaya
tusaale ahaan gelinkii dambe dhiganaya buu waalidkii ku imanaya wuxuu koodhanaya macallin gelinkii hore waa ka iskuulkii ku maqnaaye casarka ku yimaado markaa soo daa bareefad buu qabanayaa waalidku uma arko inuu ilmihiisu faa'iido ka soo qaadanayo madrasadda laakiin wuxuu arkaa inuu faa'iidada ka keenayo iskuulka taasina saamaha waxay u muuqataa dadkeenu inaanu quraanka aan u jecsanayn waxaana la ogaaday ardayba ardayga uu quraanka kaga dadaalro kaga fiican yahay xataa waxbarashada kalena inuu kaga horeeyo imanka qolada iskuulada hadaad wareysato fasal walba ardayda ugu sareysa mutafawiqiinta ah waa inta quraanka ku horeysay ee aqoonta u leh marka iska horeyn ma ayaan ardayga inuu quraanka dhigto iyo inuu hadhow iskuulka dhigto inuu dhakhtar noqdo inuu injineer noqdo inuu macallin noqdo wax haba yaraatee isdiida oo ku jira inta ma jiraan